السلام عليكم سوري بعد صاحب بيال waxaan ahay Ibrahim Adam maadaama aan iri waxaan isticmaala Duolingo si aan u barto luqad cusub waxaan rabaa inaan idin la wadaago qaabka aad luqadda Englishka aad ugu horumarin karto ama aad uga baran karto applicationka Duolingo waxa jira dadka qaar oo maaragtay wuxuu i weydiiyay lacag wuxuu i weydiinaa lacag markii aan wax ku baranayo applicationka Duolingo waa free of course lacag uu ku weydiinaa laakiin waa hadii aad adigu u baahan tahay in aad iibsato oo kale waxa jira wax la yiraahdo Super Duolingo so hadii aad doonayso Super Duolingo inaad iibsato waad iibsan kartaa waxaad weynaysaa maaragtay xaysiinta ay ku keenayaan oo kale xaysiin ay ku keenayaan so hadii aad rabto inaad xaysiintaasi aadan arkin sidoo kale waxa jira wax oo la isticmaalo oo inta si doona oo heart la yiraahdo ama just so heartigas ama justigas la isticmaalayo si aad u heshid waxaad ku badin doontaa in aad xaysiin daawato hadii kale waxaad iibsan kartaa Super Duolingo si aad u hesho si free ah hadeer waxaan idin tusi doonaa qaabka aad u isticmaali karto applicationka Duolingo waxaan rajeynaa inaad codkayga maqli kartaan hadeertan waxaan si toos ah idin tusi doonaa qaabka loo isticmaalo Duolingo sidaad uga jeedaan shaashada anigu waxaan isticmaalayaa iPhone-ka wuxuu leeyahay marka daaqadahan oo kale daaqadan hadda aan riixay oo kale waxa la yiraahdaa stack soo marka halkan ayaad waxa gashan kartaa in uu ku tuso inta maalin aad maraysid hadda aniga waxaan marayaa 29 maalin waxaan 29 ka marayaa ama 29 oo xiriir ah waxaan baranayaa luqadda Isbaanishka marka halkaas ay ugu soo bandhigaya wuxuu ii soo qorayaa got 3 minutes to practice oo kale wuu isbedelayaa saacada kadib wuu isbedelayaa wuxuu ii soo dhigayaa waqtiga practice gareyn laheeday haluminin streega wuxuu ku siinayaa wax streak la yiraahdo dadka maaragtay inta badan Snapchat-ka isticmaalaan oo kale ayaa fahmi karo streak wax la yiraahdo waa maalmaha aad isticmaalayso inta maalin ee aad soo xaadirayso ayuu ku tirinayaa streak hal maalin hadaad goosyo streak uu ka jabaya soo marka adiga waxaad ku dadaali doontaa si uu streak kaaga jabin ayaad waxa ku dadaali doontaa in maalin kasta xiisad aad qaadato 29 maalin anigoo soo 10 soo qaadanaya hadan hal maalin jaro streak uu iga jabi doonaa soo marka hada halkan ka galeynaa san serjiga waad ku qoran kartaa waa kan Duolingo hadaa rabtid aniga halkan ayaan ka galaa halkan ayaan kaga dhuftaa maadaama halkaas ii saaran yahay soo marka halkan anaa geeyay laakiin luqadda Isbaanishka ayaan isticmaalaa soo marka waa kan halkan ayuu ku keenayaa aniga waxaan bartaa luqadda Isbaanishka xiisadahan oo dhan ayaan soo qaatay basic ayaan ka bilaabay maadaama maaragtay aan ku cusbaa xiisada from basics waxaa ku xigi doona greeting people waxaa ku xigi doona get around in a city waxaa ku xigi doona order food and drinks and then hadeertan oo aan maraayo weli xaggana ku jira so waxaan rajeynaa marka in aan maaragtay sii wadi doono ayaan rajeynaya soo marka hadda waxaan isla sameyn doonaa account cusub si aad u fahantid qaabka aad u isticmaali lahayd applicationkan waxaan galeynaa qaybta profile-ka waxaan dhihi doonaa sign out this account sign out so add new account so waxaan sameynaynaa adiga hadhow wuxuu ku soo qori doonaa get start maadaama ku cusub tahay get start continue kadibna waxaad ku qori doontaa magacaaga IB iska dheh ama IB Adam double M ka dhigaya maadaama mid kale isticmaalayo okay halkan wuxuu tusi doonaa from English speakers-ka waxay bartaan Isbaanishka French Germany Italy international English so anaga hadda waxaan ka rabno waa international English haddaan idin tuso waxaan oo luqada aad baran kartaa markaad English ku hadlaysid haddaad dhahdid waa kana waxaa ku qoran litahadath al-arabi qofka carabiga ku hadlo luqadaha uu baran kara intaas waaye qof kasta luqada ku hadlo inta luqad uu baran karo Netherlands Portugal waa sidaas weeyaan so adiga kana dooranaysa maadaama uu Somali ku jirin isku balan fiirnayno Somali ku jiray I think Somali inuu ku jiro umaleyn maayo Somali kuma jiro so marka from English speakers adi marka waxa baahan tahay international English ayaa dooranaysaa continue so Asha wuxuu sameyn doonaa uu ku diyaarin doonaa
so wuxuu ku dhihi doonaa halkan wuxuu kugu weydiinayaa Duolingo xageed ka soo maqashay. So adiga hadda waxaa dhihi doontaa from YouTube. Okay, markii sidan tahay wuxuu ku siin doonaa intaan option kan ugu horeeyo ah I'm new to Englishka sidiisa waan ku cusbahay. I know some common words, xogaha ereyada qaar caanka waan yara fahansanahay. I can have basic conversations, yani conversation wada sheekaysi waan ku samayn karaa oo basic ah. I can talk about various topics, yani mawduucyo kala duwan waan ka hadli karaa. Iyo midka dambeeyo ah I can discuss most topics in details, yani details badan waan ka bixin karaa, yani tafsiilaad something like that waan ka bixin karaa. So marka haddii aad basic tahay ama Englishka ku cusub tahay waxaad kan ugu horeeya iska dooran doontaa. Kan horeeyaan dooranaynaa continue. kadibna okay well start fresh. Okay, wuxuu ku leeyahay why are you learning English, maxaad English ku baranaysaaba ayuu ku leeyahay. So boost my career, inaan xirfadeyda kor ugu qaado. Connect with people, prepare for travel, spend the time yani productively, just for fun, support my education, more waad dhihi kartaa. So any reason, more one tabta kadibna wuxuu yidhi reason, any reason is good to learn. wuxuu dhahay wuxuu soo qoray any reason is a good reason to learn, yani reason aad u baratid way fiican tahay. So waxaan iska dooranaynaa connect with people, inaan dadka kula xiriirayaan u baahanahay. Okay, let's prepare you for conversation, waxaan ku diyaarinaynaa in aad wada sheekaysi samayso marka. Okay, continue. Let's set up a learning routine. Okay, continue. What's your daily learning goal? Halkan waa muhiim, halkan waa aad ay muhiim u tahay. maalinkii inta daqiiqo oo aad rabtid in aad ku isbendigaraysid ayaa halkan ka dooranaysaa. Mid ugu horeyso 5 daqiiqo kaliya miyaad rabtaa maalinkii, oo iska casual, iska yani raaxa weeyaan. 10 minutes miyaad rabtaa inaad ku bixisid regular. 15 minutes miyaad rabtaa inaad ku bixisid maalinkii, serious ay ka tahay. 20 minutes miyaad rabtaa inaad ku bixisid waa intensive. So ha isku badinin, hana isku yareenin. 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo mid ka mid ah dooro. So maadaama qof serious ay ka tahay, yani daacad maadaama ay ka tahay inaad luqadan baratid, 15 minutes ka dooro. wuxuu ku yidhi that's 75 words in your first week. isbuucan ugu horeeyo waxaad baran doontaa 75 erey. Okay, continue. halkan waxaa kaaga muuqda 3 bilood ay soo socoto horumarka aad gaari kartid. waxa aad gaari kartid ayaa halkan ka muuqda. Converse with confidence, inaad si kalsooni leh dadka kula hadasho, in aad ereyadaada maaragtay dhisto, inaad horumariso yani dabeecad wanaagsan oo yani waxbarasho. Okay, continue. It can be hard to stay motivated. So continue. So Duolingo is designed to be fun like a game. wuxuu ku leeyahay way adag tahay maaragtay inaad maaragtay joogtaysid dabeecadda yani waxbarashada dadka dhan way ku adag tahay. So Duolingo wuxuu yiri waxa uu design gareysan yahay yani qaab iska fun ah sida gameki oo kaleeto. So continue. When you do something for the first time, you have never done it before that time. wuxuu ku leeyahay read and respond. waxaan isku dayaynaa bal inaan yara qaadano xiisada ugu horeyso. Read and respond. When you're doing something, ayada kuu sheegaysa first time. halkan speakerkan ay taabanaysaa. When you do something for the first time, you have never done it before that time. waxay ku tiri when you done something for first time, you have never done it before that time. So su-aasha halkan lagu weydiiyo waxaa lagu yidhi what does for first time mean? First time maxay la mid tahay, yani waa maxay micnaha first time? For the first time ayaa lagu baraya markay ka dhigan tahay. Okay, 3 option lagu siiyay. As usual, without any help, ama as a new experience. markii ugu horeysay markaad wax sameynaysid waxaasna aadan horey u sameynin maxay ka dhigan tahay? I think inay tahay as a new experience. wax experience yani khibrad aad u leedahay oo kale. Okay, exactly. صح. Why continue? Solo means alone. Solo means alone. Solo means alone. Solo means alone. What does solo mean? su-aasha halkan lagu weydiiyo waxaa lagu yidhi solo maxay yani waa maxay micnaha solo? So 3 option lagu siiyey. midka ugu horeeya waxaa weeye with your friends, by yourself, with your parents. So solo means alone. cidlo maadaama ay tahay solo, that means by yourself. Okay, I'm traveling solo
I'm traveling solo for the first time, so I'm very excited, short, fat, windy. So inta samid ka dooranaysa wax halkaas buuxinayo. Marka ugu horreysay ayaa waxaan safrayaa solo, yani anigoo kaligaygaan safraya. So I'm very excited. Excited. So I'm very excited. Okay. Adam فرحسناها. Are you flying with friends? Are you flying with friends? يعني مع أصحاب أياد لفلاي جرانيسا مع لصفريسا أو كله. No, I can't drive. No, I can't drive you there. No, I'm traveling solo. Okay. A traveler is a person who travels. A traveler is a person who travels. يعني a traveler يعني الغبرايا. Traveler وسفر قف سفرويان يعني سيدا يعني قف سفرويان أو سفر بدن. So هل كان سؤال الودينا what does traveler mean؟ يعني somewhere you going on vacation, something travels to see, something you travel to see, somebody who take trips. يعني was somebody who takes trips. يعني قف سفر قادنا أيوة. Okay, continue. Do you only have this small backpack? Do you only have this small backpack? يعني بورصة دبر كلا صارتو small كلية مياد حيستا. Then لبدن جوابات ميد أيات ورنيسا. Of course, I will call my parents when we arrive. That's not the right answer. Yes, traveling without luggage is much cheaper. Yes, سفريدا يعني بورصوين لعان وواح آد رخيصة. يعني بورصوين luggage وحالي ردا بورصوين كان واوين. So backpack نوع ميد دبر كلا صارنا. Check. Okay. 10 intro. Complete the sentence. My suitcase is much dash than my backpack. So جوابته حنقونيسا heavier. So my suitcase is much heavier than my backpack. يعني suitcase كيغا أم بورصدي دا وهي كعلوس تحي backpack تيدا. بورصدي دا دبركا. Nice job. Our flight lands at 3 o'clock, right? سؤال بالويدي يعني حلو قري. Our flight lands after هاي. Let's listen. Our flight lands at 3 o'clock, right? Okay, هاي our flights. Lands. Our flights. 3. Our flight lands at 3 o'clock. At 3 o'clock. 3 o'clock. Right? Right. Okay, check. Nicely done. Okay, what's next? So learning language. Okay, halkaas ayay xiisadii ku dhamaatay. So waqtigaad ku spend garaysay waa committed time-ka waa 8 minutes. Okay, maadaama anaga 15 aan soo dooranay laakiin hadda xiisada waxay noo qaadatay only 8 minutes inaan qaadano. So claim XP. Now let's help you build. Okay, continue aan leedahay. Day 1 is streak. I'm completed. So sidaas weeyaan qaabkaad xiisadaha u qaadanaysid. So commit to learning. Wuxuu ku siinayaa marka meeqa maalin ayaad rabtaa inaad focus ka saarto. Streak goals help you stay committed. Streak goalka yani streak waa balkan ku sheegaya waa dab yani is like a fire. So wuxuu kugu dhiirigelinayaa in maalin kasta aad xiisada qaadato. So streak goals help you stay committed. يعني streakga goalka oo maaragtay yani goalkaaga oo streakga wuxuu kaa caawin doonaa inaad commit garayso inaad yani waxan ku fara adeegto. So meeqaad ka dooranaysaa 7 days miyaa rabtaa inaad streak wado, 14 days miyaa rabtaa, 30 days miyaa rabtaa, 7 days iska dooro, 7 beri dooro. Ka 7 beri markay dhamaato adaaba sii wadi doono. يعني marka lama dooranaysid waa sii wadi doontaa. Wuxuu ku dhahaa waad dhamaysay 7 beri oo ku barya maalinka 8 ku dar ayuu ka codsanaa ma fahanti. So commit to my goal ayaa leedahay. Okay, go ahead, continue. Okay, create profile later iska leh gadaalan ka abuurina waxa rabaa inaad tuso. Waxa rabaa inaad tuso waxay tahay xiisada waxa free ka dhigayo waa heart ama justigan. So justigan si aad u badisid and refill hearts 500. haddii heartigan u dhamaado 500 oo waxa laga rabaa midkaan okay balkan I think in la yiraahdo gram something like that. laakiin haddii aadan kaas haysanin xitaa waxaa sameynaysaa practice to learn hearts. practice karee si aad u angarayso ama aad u hesho hearts. So kan markaad ku dhufatay hadhowti waxaa dhici doonto inuu ku siiyo practice markuu ku siiyo kadibna wuxuu ku siin doonaa xayisiin hal midteeda kale. xiisada markay ku dhamaato hadda maynan arkin haddana muusan tusin. xiisada markay ku dhamaato wuxuu ku tusi doonaa xayisiin uu isku xayisiinayo Duolingo. So xayisiintaas inaad daawatid qasab waay.
adigu xayeysiintaas daawan haddii aad ka baxdeed xiisadaadii maadan dhamaysan ay ka dhigan tahay. So xayeysiintaas dhamayso yani dhaxda markay marayso ayaad isdhaafin kartaa, continue leedahay waa isdhaafin kartaa. So waa sidaas qaabka aad u isticmaali kartaa ama luqadan aad Englishka aad ugu baran karto Duolingo. Xataa new course ay ku soo dareen hadda waa math iyo music, qofkii rabo inuu music barto ama inuu xisaab barto ka baran karaa. Marka waa sidaas u isticmaali karto Duolingo. Waxaan maleynaa inuu muuqaalkan ugu dheeraaday karaali hada. aad ayaad u mahadsantihiin daawashada muuqaalkan, aad ayaad u mahadsantihiin. Waxaan idinka codsanayaa intaadan muuqaalka ka tegin fadlan muuqaalkana like saar, kanaalkana subscribe dheh haddii aadan horay u dhihin, ugu yaraana hal qof oo asxaabtaada ka mid ah gaarsii. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Asalaamu calaykum.